Haddaba cunista ayaxa iyo weliba karintiisa ayaa waxa ay ku soo badanaysaa geyiga Soomaaliya kadib markii uu ayax duulduul ah uu ku habsaday. Cunista ayaxa ayaa iyadu ahayn mid cusub, waxaana laga cuni jiray wadamada Khaliijka Carabta, Aasiya fog, iyo weliba qaaradadan Afrika. Haddaba ayaxa iminka Soomaaliya ku habsaday cunistiisu caafimaad ahaan waa sidee? Ayaxuse ma fayadhowr qabaa? Ayaxa iminka Soomaaliya yimid halkuu ka yimid? Dad badan ayaa waxay sheegayaan cayayaankan ayaxa iminka Soomaaliya ku habsaday inuu ka yimid wadamada deriska sida Kenya iyo Ethiopia. Cayayaankan ayaxa ayaa isagu mid laga soo buufiyay wadamadaas iyadoo loo adeegsanayo maadooyin lagula dagaallamo cayayaanka oo kiimika halis ah. Haddaba ayaxa iminka Soomaaliya yimid, dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu sidaa maadooyin aad iyo aad halis u ah iyadoo loo soo adeegsaday suman kiimika ah oo lagula dagaalamayay ayaxa wadamada deriska ah. Soomaaliya iminka ma leh hay'ad caafimaad oo fayaqabka ayaxaasi baaritaan ku samayn karta. Halista caafimaad ee ayaxa iminka Soomaaliya ku habsada ayaa iyada boqolkiiba 90 aad u sareysa, tiyo ay usii dheertahay ummadii in ayaxii sida saxda ahaa in aanan loo karinaynin ama loo sameynaynin.